السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha naga mudan meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loola soo dego isla markaana lagu rakibo kombiyuutarka application-ka codsifeeyaha ah ee loo yaqaan Audacity. soo dhawo markale daawade dabcan si aad ula soo degto application-ka loo yaqaan Audacity oo application dabcan lagu sifeeyo markaan lagu hagaajiyo codadka. marka hore waxaad u baahan tahay inaad soo kiciso browserka aad ka isticmaalayso internetka, kadib waxaad ku qoraysaa qaybta searching ee Google-ka magaca application-ka oo ah Audacity. kadibna waxaad ka dooranaysaa kan ugu horeeyo ay ku qoran tahay Audacity R, waxaana dabcan iska leh audacityteam.org. marka ka ku dhufo oo jugsi. dabcan muuqaalkan wuxuu hordhac u yahay casharro taxane ah oo aan kaga hadli doono abkan loo yaqaan Audacity. casharadaas oo xoogoodu yahay qaabka codadka loo hagaajiyo, qaabka loo jarjaro, qaabka looga saaro sawaxanka, qaabka loogu sameeyo dayaan ama echo, iyo guud ahaan qaabka codka loogu daro effects. dabcan software-kan application-ka loo yaqaan Audacity waa application ama software bilaash ah oo dhammaantii free ah. haddaba si aad ula degto waxaad imaanaysaa qaybta ay qoran tahay download Audacity, halkaas ayaad jugsiinaysaa. kadib wax kugu soo xirayaa qaybtan oo faahfaahinta guud ee application-ka. dabcan iminka version-kan aan isticmaalayno oo aan la degayno waa nooca u dambeeya waana 3.02. iminkana waxaa socota hawshii dejinta. dabcan sida halkan hoose ku cadna software-kan loo yaqaan Audacity-ga cabirkiisu waa 8.2 megabyte. dabcan iminka software-keeni waa uu noo soo degay. si aad u furto isla markaana aad ogaato folder-ka lagu geliyay, waxaad ku dhufanaysaa calaamadda yar ee qaybta kor u jeedo, kadibna waxaad ka dooranaysaa show in folder. dabcan waa kan iminka software-keeni. haddaba si aan ugu rakibno kombiyuutarka, software-ka 2 jeer dushiisa ku dhufo, kadibna waxaad ka doorataa qaybtan run halka jugsi. dabcan qaybtan waa luqadii. waxaad dooranaysaa luqadda aad rabto inuu kugu shaqeeyo software-kan. sida caadiga default-iga ah ee lagu keeno application-ka waa English. haddii aad jeceshaana waxaad xulan kartaa luqad kale oo aad rabto inuu kugu shaqeeyo. markana English-ka noogu daa, kadibna waxaad dhahdaa okay. qaybta marka uu ku soo bandhigana waxaad dooranaysaa halka ay ku taalo next. dabcan mar kale ayaan leenahay next, mar kale next, kadib mar kale ayaad leedahay next, ugu dambayna install. mar kale ayaad leedahay haddana next, ugu dambayna waxaad leedahay finish. dabcan iminka application-keeni codsifeeyaha ahaa ee Audacity-ga waa lagu shubo kombiyuutarkeena, markaana waan soo kicinaynaa application-ka. dabcan halkan waa wajhada hore ee software-ka Audacity-ga oo dabcan software lagu habeeyo codadka waliba si bilaash ah. waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad ka hesho isla markaana aad baratay qaabka loola soo dego application-ka loo yaqaan Audacity oo ah application lagu habeeyo codadka isla markaana ah software free ah waliba bilaash ah 100%. dawalaal muuqaalka intaadan ka bixin waxaan ka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto, muuqaalkana aad like noo siiso. waad ku mahadsan tahay dabcan daawashada muuqaalkeena muuqaalka inta kulmi doono. waa walaalkii Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku dhaafay sida ay nabadgeliyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.